بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الأخوة الكرام، وإذن سلام يا ملك سودونك دعالة سكجوكتان. إن شاء الله تعالى ما أنت أويتاي تاريخ دا ميلاد ديجا 2020 bisha shanaad 14 kuna beegan 1441 taariikhda hijriyada bisha Ramadaan oo maanta marayso 21 insha Allah taala masala baraha bulshada la isla dhex wareegayay baraha bulshada ayaan rabaa in yar inaan bidhaamiyo misaladaas oo ku saabsan ninka haweentiisa salaada taraawiixda ma ka bixin kartaa. waxaan ugu dhaliyay inaan misalada ka hadalno annagoona hadda ataagid iyo weerarad kale aanan ahayn oo misaladii misala cilmi ay tahay bulshadana in laga baaytiro sembre u baahan tahay. waxaa bariha bulshada bariyahan dhex wareegayay cod iyo muuqaal iska leeyahay wadaadka la yiraahdo loo yaqaano Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo inta la weydiiyay uu yiri misaladaas jawaabteeda uu yiri ninka haduusan quraanka garanaynin zawjadiisu salaad taraawiixda waa ka bixin kartaa, guriga ay ku tukanayaan waana ka bixin kartaa. misaladaas aan rabnaa inaan saxno fatwada noocaas u baxday annagoona hadda ataagid kale iyo aanay ahayn yaa waxaan rabnaa inay fatwada fatwo khaldan tahay oo sax ahayn laguna khaldamay qofka noocaas oo kale yacneen u fatwadana fatwadiisa wax la qabsan kara aanay ahayn. misaladaas kalibiye gaaban baan kusoo koobi doonaa. kow waxaan ka hadli doonaa hortay ninka ama dumarka imaam ma noqon karaan rag. markaan taa ka gudubna waxaan ka hadli doonaa xadiidkaas xadiidku u soo qaato ummu waraqa xadiidkeeda inaan ka jawaabno kadibna aan dadka mas'aladaas oo kala qaabka u fatwoodo oo shaadka iyo waxyaabaha shuduud ama ruqsooyinka culimada raacraaco wixii ku soo arooray. awalan ninka ama dumarka imaam rag uma noqon karaano sida jamaahiirul culamaa qabaan ama marka qaarkood ay ka cabiraan ijmaac ay ka cabiraan. haddii mas'alada jumhuurul culamaa saa ku tagta lagu yiraahdo wixii ka soo haray wuxuu noqonayaa wax shaada oo fatwa loo cuskan karin ama hadduu xitaa qofka u baahdo uusan inuu cuskado ku dhaqmo aan la ogolayn asaga daatadiisa ahaan. haddii lagu yiraahdo masalada ijmaac weeyana ijmaac in la qarariyo xaraam bay noqonaysaa. awalan haweeneyda inay nin salaad ka bixin karin ama ninkeeda ahaada ama qeyrkii ahaale ijmaac waay ama jumhuurul culamaa ku tageen adilla badanna way ku soo aroortay. kan koowaad xadiidka koowaad u daliila oo haweeneyda aanay marnaba imaam u noqon karin qof ragga waxa weeye xadiidka saxiixa Imaam al-Bukhari saxiixiisa uu ku soo saarayay nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam lan yufliha qawmun wallahu amrahum imra'a lan yufliha qawm mallibalan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wallahu amrahum imra'a amarkooda haweeney tawallisiyo gacanta u galiyay. xadiidka Imaam al-Bukhari baa saxiixiisa ku saara
haddaba xadiidka macnihiisa wallow amrahum imra'a salaadu sida la yaqaan waxay ka mid tahay min acdamil wilaayaat bay ka mid tahay min acdamil wilaayaat wilaaya la qabto kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay wilaayatu salaad baa ugu weyn wilaayatu salaad yaa ugu weyn waxaana kugu dilaa arrinkaas saxaabadu hadalkii ay ku hadlayeen maalinkii sida Abubakar la dooranayay oo ay joogeen balbaladii reer bani saacida ama reer bani saqiif ay joogeen markii la isku turtuuray oo yaa madaxweyne noqonay Mustafa Duuga la wadwaday sida Abubakar ugu dambeyn waxay dhaheen kayfa la narda lidunyana man radiyahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam lidiinina bay dhaheen sida Abubakar sida la og yahay maalinkii Mustafa maalmo xanuunsana ninka salaada ka bixiyo tujila dhahay buu ahaa oo saxaabada imaam u ahaa ayuu ahaa aso imaam saxaabada oo tujinayo oo Mustafa uu ku aaminata iyadoo geeriyooday kadibna markuu Mustafa geeriyooday inta Mustafa laas waxa la qaydna hogaamiyo aan doorano marka waxyaabay ku doorteen waxa kamid ah marka sida Abubakar Mustafa noolba inuu salaada hogaaminay marka waxay dhaheen sidabaan kayfa la narda san ugu raali noqonayeen lidunyana adduunyadanada man radiyahu rasuulullah diinina bade madaxweynenimadii marka islaamka uu qaban lahaa iyo tii imaamnimadii uu Mustafa oo joogo imaamaha waxay ka weynaysiiyeen tii uu imaamka ahaa asoo Mustafa joogo salaadana imaam u ahaa saadartay salaadu waxay tahay marka min acdamil wilaayat ay kamid tahay imaamnimadeedu min acdamil wilaayat bay kamid tahay waxa kale uu daliil ah qolkii nabiga kaleey salaatu saadata maadaama min acdamil wilaayat tahay haweenaydina la yiri qom malibaaniyana amarkooda haweenay tawallisiyay amarka la tawalinay waxa kamid ah wilaayatu imaamati salaad ba kamid ah yaa kamid ah li'annahu midda kutubka cilaanay waxay ku tilmaamaan waxa weeye kaamil naaqis ku dayday maxay rag waa kaamil haweenaydan nabiga wuxuu ku tilmaamay xadiidka Muslim Bukhari oo saariyeen naaqisatu aqlin wa diin buu ku tilmaamay naaqisatu aqlin wa diin qof marka aqliga iyo diintiisa labada inay naaqis nabiga ku tilmaamay waba ku nabiga tilmaamay wuxuu dhahay iyadoo sooman baa waxa ku imaanaya xeel markaas ay maalmo afurnaanaysa ama maalmo ay soomayeen afurnaanaysa ka waxay kamid tahay aan salaadaynin naaqisatu diin bay kamid tahay ragina seenbari cibaadadiisa waa mutawaali oo xirta talabaadna hadii shahaadadii laba dumar shahaadada iyo hal shahaadadiisa la simay taasna waa xaq aqliga oo sida Ilaahay Quraankiisa ka suuratul Baqara aakhirkeeda tan kale nabiga kaleey salaatu wasalaam qolkiisa uu daliil uu yiri la ta'ummanna imra'atun rajulan la ta'ummanna yaw imaam noqonin imra'atun haweenay rajulan nin yaw imaam noqonin buu nabiga kaleey salaatu wasalaam farqi male marka ninkaas inuu yahay nin qabo iyo qeyrkiisa lama kala farqinin xadiidka al-Imam al-Bayhaqi ayaa soo saaray ibn Maajahna waa soo saara sanad daciif ay ku soo saaraan oo aan tag barneen oo daciifa Jaabir bin Abdullah laga wariya laakiin ka horay ayaa ka xoog badan oo hoostagaya taxta aslin shaamilin ayuu hoostagaya waxa kale oo laga warinayaa Abdullah bin Mas'ud Abdurrazzaq fi al-Musannaf ku soo saaray Dabaranina oo soo saara Abdullah bin Mas'ud laga wariya inuu Abdullah bin Mas'ud yiri akhiruhunna haythu akharahunna Allah dumarka gadaal mariya yaani hore idin kamar imaam idin noqonin haythu akharahunna Allah meeshu Ilaahay dimariyo dib u dhigay xadiidka Abdullah bin Mas'ud ayuu mawquuf ku yahay laakiin wuxuu leeyahay shaahid sahih muslimka uu ku soo saaray saxiixiisa ayuu leeyahay Abu Hurayra laga warinayo oo nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam khayru sufufir rijal awwaluha wa sharruha aakhiruha khayru sufufir rijal ragga sufuftiisa waxa ugu khayr badan awwaluha midda ugu horeysa imaamka xaqiisa xigto yaa ugu khayr badan wa sharruha aakhiruha midda ugu sharta badan waa midda u dambayso sababka damba oo hadii dumar gaar ku tukanay xagga dumarka la xiriirto weeyaan markaas wuxuu yiri wa khayru sufufi nisaa'ina aakhiruha haweenka sufuftood midda ugu khayr badan midda gadaal dambayso waay oo inay hormarto aan la ogoleen wa sharruha awwaluha midda ugu shar badan waa midda ugu horeysa idoon imaam ahayn oo ma'muum imaam rag ku daba tukanayso yaa hadana waxa leeyahay inay hore soo marto iidi lafteeda kala qiimo badan oo safka dambe kuba ku jira safka kuba ku jiraan ba khayr badan baa leeyahay
waxaa kaloo daliil leh xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam laga warinayo oo sunanka ku soo arooray abi daawud iyo tirmidi oo kale ku soo arooray sanadkiisna uu wanaagsan yahay baa nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man zaara qawman falaa ya'ummuhum waliyu'ammahum rajulun oo minhum qowm ninkii soo ziyaarto oo ziyaaro ugu imaado yuusan u imaam noqonin yuusan u noqonin waliyu'ammahum ha u imaam noqdo rajulun oo minhum ayagoo ka mid ah ha u imaam noqduu dhahay mafhuumka xadiidka marka manduuqu waa saase mafhuumkiisa waxaa weeye anna almar'ata laa ta'ummu lqowm inay u imaam noqonaynin wa fiihim arrijaal ayagoo rag ku sugan yihiin inay u imaam noqonaynin haweentii qoomka inay u imaam noqonaynin ayaa u daliilah waxaa kale u daliil oo kale aayadda qur-aanka ahayd oo inaan ku bilaabanaba munaasabka eese laakiin aan hafay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون رجوا كوبا قمتان بدن على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وحي إلهي كفضلوا بركة وبركة لو فضلي آيات الرجل سود للشذ وحكم ذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إنه هوين يده أنا رج إمام النقم كريم الإمام الشافعي وحيد كتاب كيس أمكا وحكيري صفحة سدح بقول اللباتن إذا صلت المرأة بالرجال والنساء والصبيان الذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكورنا غير مجزئة هذا ولد إمام نقطه رج عيال هذا إمام نقطه رج عيال هذا إمام نقطه يضمر فصلاة وحيري فصلاة النساء مجزئة dumarka imaamnimada ay u noqoto way gudaysaa buu dhahay ayagoo salaad waa iska bixin karaan dumarku marka ama salaada ragga iyo salaada ciyaalka miya ghayru mujziatin way u dhahay mid gudaysa ma salaada baatil wala soo celinaya markaas imaam shaafici wuxuu yiri li anna allah azza wa jalla ja'ala ar-rijala qawamin 'ala an-nisaa ragga ilaahay wuxuu ka yeelay kuba qumid badan 'ala an-nisaa dumar korkooda u qumo ayuu ilaahay ka yeelay وقصرهن عن أن يكون أولياء إن ولياء هذانا إلهي واجابيي وهلك وكسر عليه مركز وحيري فلا يجوز أن تكون امرأة إمام الرجل في صلاة بحال أبدا وحيري ما بنانو هوين إن يرنن النقطة إمام النقطة بحال أبدا جب مرنا وما بنانو ده مرنا وما بنانو أيضا مركز وحكم التاي وحيابا لو دليشدو هوين إناني قف رجع إمام النقم كريم وأنا صاع الليني علماء حق هذا حدان كلمة كسر قاعدنا ابن حزمي حافظ كليري هذا ابن حزمي وذاري رجع وين كم ده في مراتب الإجماع كتاب كليري هذا وحكوي لحديث صفحة لبعتنا تضبط واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بالإجماع بوده وحوده وحسكوا وافقا علماء لا تؤم إنها هوانت إمام نقونين الرجال رك أيوة أك إنها هوانت وحانو أيوة إنها هوانت أيوة مركا هدي سميانا ويلتو كذا كورن فصلاتهم باطلة بالإجماع بوده صلاة ولا باطل وي وان إجماع رنتاس وخلاف كمجري بوده وخلاف سلام مركا إجماع نك خلافه نحن نقول إجماع قررية هل سنو إجماع دلعنتيسه ابن قدام أساس وكلي ابن قدام حكم دي حنبلية ذا رجل واوين مش إمام النووي وشافعي وجوه أي حنبلية وجوه وحولي كتاب المغني ليرادو وكسو أروريي مسائشة فقهية يدل ذي وكسو أروريي وحولي كتاب كاس جزء كلابات صفحة بقول سجاشن إسقال ابن قدام حكيري وأما المرأة مياه فلا تصح أن يأتم بها الرجال بحال هوين إذا إن يرق وإمام نق إن يرق ديدان ما صحي سودا بحال مرنبا في فرض ولا نافلة سنة هي فرلتون إن يقول ديدان أنصح ميسو في قول عامة الفقهاء فقهاء لما سيسكوا فقسيهم بودا ابن حزم إجماع بكعبري تن إجماع بكعبري ابن قدامة سجنا الإمام النووي سيدو كلي كتاب كيسان مجموعة الإمام النووي كتاب كيسان مجموعة جزء أفراد صفحة بقول كنتم يلبو
maruu ka hadlay wuxuu yiri wattafaqa asxaabuna ala annahu la tajuzu salatu rajulin baaliqin wala sabiyin khalfa imra'atin wa sawa'un fi man'i imamati al-mar'ati lirrijali salatu al-fard wa tarawih wa sa'iru an-nawafil هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بوده الإمام النووي وحويري وحسكوا وافقين أصحاب الشافعية على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ صلاة نن بالغ صلاة إن أنسحين أما ولا سبيين سبي سلاديس نن بالغ اسكوا دافع سبي سلاد إن أنسحين خلف امرأة هويني قداشت وحويري وسواء وحاسما في منع إمامة المرأة هوانت إمام نماد إن الديدي للرجال إمام نقطه وحكوس من صلاة الفرد صلاة فرد الإمام أمون نقول كرتو ولا تراويحنا إمام أمون نقول كرتو لا وسائر النوافل سنوينك أنت وصهرنا إمام أمون نقول كرتو مركز وحيري هذا مذهبنا سلاس وحكوت تجان علماء الشافعية سلاس تجان ومذهب جماهير العلماء علماء جماهير مذهب كودنا وأساس أو من السلف والخلف سلف يا خلف إذا خلاف كما جروا وحيري وحكاه البيهقي عن فقهاء السبعة رمق اللي هجري بيهقي بكسو وريودا فقهاء السبعة وحاليا درك تابعينها هل الزبن ولا تشوجو تدوب فقيه مقالة المدينة ولا تشوجنا ساس اسكوا فقين بودا رجاس وحكم سعيد بن المصيب والتابعية قاسم بن محمد بن أبي بكر والتابعية عروة بن الزبير والتابعية خارجة وأصل التابعية أبو سلام بن عبد الرحمن وأصل التابعية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والتابعية سليمان بن يسار تضبط عن بيعين مركز وحي الإمام نووي ولبا وهو مذهب مالك ساس إمام مالك نكون تجيب بردهاي وأبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة ساسوي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وداود الظاهري لما أنتوا ساس إجماع كويهم بردهاي يعني أفرت مذهبنا خلاف مسألة كجرين أيو الإمام النووي هو حزب السنية وعن قصة قبلنا مسألة قابت أوه الرئيس الإمام الشوكاني كتاب كيسان الصيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وحكويري صفحة لبابا لي كنتن وحكويري لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء بده نبي حقي كما سقنا عليه الصلاة والسلام في جواز إمامة المرأة هوين يدا إمام نماذا إذا إنه بنانتهاي بالرجل إمام نقطي والرجال شيء كما سقنا بده وحنا بيكاينه ملك مرك أمهالنا هذا مرك بدنا هذا فرق ملوده ولا وقع في عصر مصطفى زبن كيسنا مدعين هوين إمام نقطي ولا في عصر الصحابة والتابعين صحابة الزبن كودي التابعين تنا إذنا مدعين بوده من ذلك شيء كمدعين إذنا مركز وحير وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال محا إمام نقونا يامبا صفوفتيني وحالي هذا ركو حرنيسان قذال دم مرة ليري هسود دوائنا ليري هذا حتى هواني كلية تاي ذاتك حتى isla tukanay haday maxram iyada u yihiin wiilasheedii yihiin xitaa inay saf la gasho lama ogola inay saf loo gasho xadiidka muslim saxiixan sida ku sugnaa marka wuxuu yiri marka al-imam shawkani wuxuu yiri wadaalika li'annahu awraat dumarku waa awraat budahay waa awraat wa atimamu ar-rajuli bil mar'atina khilaafu ma yufiidu hada haweeneed inaan nin ku dayatana waxa la soo sheegay wuxuu faa'iideynaya khilaafsan tahay budahay يا خلافنا مركز وحيري ولا يقال الأصل الصحة إلا ما ده أصل كوان صحتان وهذه يعني إيش كتجسوا وان صحيا لديه ماي محايا لي وحالنا هبوا قد ولد وحصار ما يدل على أنهن لا يصلحن لتوالي شيء من الأمور وحصار أرتي إن هوين دون أكسنان إن يعني ما مشو شيء أمور تكمدة أمور تكي عن سوق قادرين وسوق تحديد كأمريكا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة يا مركا يسوقات وكاس وحو يري حديث كاس صحيحان كسوغن ياي بوداي وغير ما يفيد فائدين منعهن أن يكون لهم منصب الإمامة في صلاة للرجال حديث كاس وحو فائدين بوداي إني دمرك الله أقولان إني منصب صلاة هجاميان رجنا كو هجاميان ساسي مركا مثلا داس بيرجع عيدو تورجع عن الله أقولان دمرك عن الله أقولان رجنا إمام النقدان قارن علماء الجمهور كعبرين قارن إجماع كعبرين
wixii soo hara marka wax shaada oo naf aanan lahayn buu noqonayaa waana tilmaami doonaa shaadka qofka daba ordana xukunkii wuxuu noqonayo xadiidka marka wadaadka uu daliishaday oo xadiidka waraqa u daliila inay haweenayda ninkeeda oo salaad taraawix ka bixin kartaa xadiidka wuxuu ku sugan yahay sunanka waa ku sugan yahay abi daawud mana ka hadlin darajadiiso wama sakata canhu abi daawud fa huwa saalixun baa la dhaha wuxuu ka aamuso xukmu saalixu yeeshaa inkastoo saalixaas masalaxa marka la joogo saalixun lilixtijaaji miya ama lilmutaabacaat waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibnu khusayma fii saxiixii buu ku soo saaray waxaa kaloo soo saaray ibnu jaaruud imaam axmed bin xambal daarulqudni xaakim bayhaqi sanad xasan buu ku soo saaray waxaa cileeyay xadiidkaas alimaamu almundiri waliid bin cubaydullaahi buu ku cileeyey ku jiruu yidhi xadiidka marka saasay marka yuu hortay ay raggaa barahaba soo saareen xadiidka lafdiga haddaan soo qaadanno wuxuu ah ana nabiya sala allahu calayhi wasalam amaraha an ta'umma ahla daariha gabadhaa wuxuu amray inay u imaam noqoto nabigu inay u imaam noqoto amray ahla daariha daarteeda ehelkiisa inay u imaam noqoto ayuu nabiga amray ragga soo saaray waxaa ka mid ah xadiidka daarulqudni wuxuu yidhi ziyaadu ku daray inamaa adina lahaa an ta'umma nisaa ahli daariha buu yidhi lafdigaa hore wuxuu ahaa amaraha an ta'umma ahla daariha wuxuu amray inay u imaam noqoto daarteeda ehelkiisa haddii la dhaho marka daahirka waxaa rag iyo dumarba waa soo gudagelayaan riwaayada marka daarulqudni si gooniya ula fulbaxdo waxay tiri inamaa adina lahaa nabiga gabadha wuxuu u idmay an ta'umma nisaa ahli daariha iyada daarteeda ehelkaa haweenkooda xadiidka marka wuxuu ka hadlaya haween waa u imaam noqon karaan gabadhan gabadh wanaagsan bay ahayd waxaa la dhahay weli mu'aadin baa loo sameeyey inta loo sameeya codsatay gurigaada ku tuko dumarka guriga kula joogana salaada ka bixi baa la dhahay dumarka guriga kula joogana salaada ka bixi inay sidaa tahayna ziyaadadaas riwaayada daarulqudni baa ku tusini riwaayada daarulqudni inamaa adina lahaa an ta'umma nisaa ahli daariha iyada daarteeda ehelkaa haweenkooda ibnu raslaan wuxuu ka mid yahay ragga abi daawud ka sharxo ilaa wuxuu ku sharxa 20 mujallad sharax mufiida markuu soo qaaday xadiidka wuxuu yidhi riwaayada bayhaqi iyo zaa'idka wadatana uu soo qaaday wayajibul xamlu calaa daalika buu dhahay in arrintaa lagu xambaaro xadiidka oo nisaa ahli daariha la yidhaahdo ayaa waajib noqoni buu dhahay wuxuu ku yidhi juska 3 safxad wuxuu yidhi waraqa xadiidkeeda waxaa wey macnihiisu inamaa adina lahaa an ta'umma nisaa ahli daariha daarteeda ehelkaa haweenkii inay u imaam noqoto ayuu nabiga u idmay buu dhahay markaasuu wuxuu yidhi kadaalika saasuu rawaahu daarulqudniyi ku wariyey xadiidka oo lafdiga haween nisaa ahli daariha markaasna wuxuu yidhi sidaan hadda ka soo guurinaynay ibnu raslaan oo kale wahaadihi ziyaadatu yajibu qabuuluhaa ziyaadada in la aqbalaa waajib noqonaysuu dhahay haddii xitaa ziyaadada aan la sheegin oo lagu gaabsan lahaa xadiidka qaybtiisa hore anta umma ahla daariha haddii qaybta xitaa lagu gaabsan lahaa buu dhahay walow lam yudkar daalikana latacayana xamlu lkhabari calayhi buu dhahay khabarka insaa lagu xambaaraa waajibi lahayd buu dhahay maxaa yeelay liannahu aadina lahaa an ta'umma fi lfaraa'idi guriga ku tuko faraa'ishaada maba ahayn waxaa laga hadlaya taraawiixii baabkeeda u dhahay waxaa laga hadlaya gabadhan gurigeeda faraa'isha inay ku tukato saas haweenka u khayr badane marka wuxuu u idmay an ta'umma fi lfaraa'idi inay imaam noqoto faraa'isha dhexdeed bidaliili annahu jacala lahaa mu'adinan sida xadiidka qaybihiisa ku sugnaad gabadhaa mu'adin ayuu nabiga u sameeyey markaas wuxuu yidhi walaadaanu inamaa yushracu fi lfaraa'id baa loo jideeyay salaad taraawiixa ee sunno kale looma jideeyo yidhahay aadaan looma jideeyo walaadaanu inamaa yushracu fi lfaraa'id haddii wuxuu dhahay la qadaro ooba dhahnaba waa dhacdo ragay umaan maqdaan dhahnana la qadaraba cala fardi wa taqdiir walow qudira hubuutu daalikana liummi waraqa haddii loo sugaba oo la dhaho macal mu'adinka uu ahaa oo ninka ahaba imaam haddii xitaa la dhaho la qabto lakaana daalika khaasan bihaa buu dhahay arrinka iyaduu khaas ku ahaa buu dhahay bidaliili annaha laa yushracu ligayriha min annisaa'i alaadaan walaa iqaama iyada qayrkeedoo habeena inaanan aadaan iyo aqam mida toona aan loo jidaynaynin taasaa ku tusin u dhahay fatakhtasu bilimaamati waa liikhtisaasiha bilaadaani waliqaama
imaamnimada ay khaas ku noqotaa le marka iyada inay u imaam noqoto ninka u aadaamay iyo addoonkeeda iyo wixii la halmaalo iyaday khaas ku ahayd sidii aadaankii caqimkaba loogu jideeyey iyadoo loogu ogolaaday marka labadaa jawaab buu ka bixiyey marka hadduu sanala kugu diiday ibnu qudaama mar wuxuu yidhi waa qaybtaa horo waa laga maarmaan buu dhahay xadiidka lafdigiisan in dumarkii looga jeedo oo sidii daarqudni riwaayadiisa inamaa adina lahaa anta umma nisaa ahli daariha haddii xitaa cala fardi wataqdiir haddii la qadaro xitaa rag inuu ku jirana min khasaa'isihaa baan ka dhigaynaa buu dhahay saasay marka xadiidkaas yay uga hadleen culummadu waxaan ku gebagabaynaynaa kelimo uu leeyahay albasaam waxaan rabaa alamiiru sancaani fii subul salaam xadiidka hortay waa xadiid xitaa mukhsaraadka waa ku yaallaayo buluuq maraamka ibnu xajar waa ku soo qaaday buluuq maraam ragga sharax waxaa ka mid ah amiiru sancaani subul salaam kitaab la yidhaahdo ayuu ku sharxay markuu soo qaaday xadiidka wuxuu yidhi wadaahiru annaha kaanat ta'ummuhu sida soo degdegay xadiidka haddaanan ziyaadada xitaa la fiirinin daarulqudni inay u imaam noqon jirtay kaanat ta'ummuhu rajulkii u aadaamaya iyo waqulaamaha wajaariyataha inay saddexdaa imaam u ahayd ayaa soo degday daahirkiisa wadahaba ilaa sixati daalika abu thawr iyo muzani iyo dabariyaa ku tageen buu dhahay inay gabadhaanu ninkii iida u aadaamayey iyo addoonkeeda iyo addoon iida ay lahayd inay imaam u ahayd oo meeshaa nin uu ku jiray saddexdaa nin keli baa ku tageen buu dhahay markaasuu wuxuu yidhi wakhaalafa fii daalika aljamaahiiru buu dhahay jamaahiirulculamaa waa khilaafeen saddexdaan marka saddex ninoo shaada inay yihiin saddex ninoo saaxiibulmadhaba aanay ahayn saddex ninoo shaada ay yihiin ayuu kugu tusinayaa jamaahiirulculamaa waa khilaafeen buu dhahay wa awalu alxadiida waxay ku ta'wiiliyeen calaa annahaa tusallii binisaa'i ahli beytiha saasay jamaahiirtu dhaheen buu dhahay wata'awalu calaa annahaa tusallii binisaa'i ahli beytiha gurigeeda ehelkii haweenkood inay tujinaysaa xadiidka lagu fasiray kamaa qaalahu daarulqudniyu wakayruhu say dhaheenoo min kibaari a'immati a'immada kuwada waaweyna saasuu yidhi subul salaamka ku yidhi alamiiru sancaani sidaasoo kale basaam sheekhaan la leeyaho fii tawdiixul axkaamka iska leh oo buluuqa ragga sharxa ah xadiidkaa markuu soo qaaday wuxuu yidhi yadullu lxadiidu wuxuu tusinay calaa sixati imaamati almar'ati binnisaa taasuu daliil u yahay buu dhahay xadiidku wuxuu daliil u yahay calaa sixati imaamati almar'ati binnisaa haweenayda inay haween kale imaam u noqon karto inay ansaxayso allaatii laysa macahunna alrijaal kuwaasoo micigooda rag uusan la soconin ama hadduu rag ku jiro looma ogola xadiidkaa marka saasay culammada jamaahiirulculamaa ama muxadisiinta uga jawaabeen wadaadka meeshuu la aadana aad buu uga fog yahay ilaa waa hadalkii ka mid ah inuu leeyahay bacdulfuqaha baa deliishaday bacdulfuqaha afartii madhab raggooda jamaahiirtoodii waa soo tilmaannay waxay qabeen saddexdaa nin marka ayaa mas'alada shaad la ah saddexdaa nin inay shaad la yihiin waxaa kugu daliila hadda imraslaan markuu xadiidkaa kaga hadlayay abi daa'uudka sharaxiisa warkiisa hadda meelahan ka soo qaadanayna wuxuu ku yidhi safxadii bogi aan hadda soo qaadanayna wuxuu yidhi waqad xukiya can ilmusaniyi wa abi thawr annahu yajuusu an ta'umma almar'atu fii salaati taraawiix waxaa laga soo xikaayada laga sheega buu dhahay musani oo xerowgu shaafici iyo abi thawr inay haweenaydu imaam noqon karto fii salaati taraawiix labadaa nin baa laga soo sheega buu dhahay qurdubi saasoo kale wuxuu yidhi washadda abu thawr wadabariyu ayaa shaad noqduu dhahay siduu yacnayn masalada ku soo guurinayo albidaaya walnihaaya kitaabkan waxaan rabaa bidaayat almujtahid wa nihaayat almuqtasid kitaabkana leeyahay iska leeyahay ibnu rushdi safxada 200 jiska koowaad safxada 280 qurdubi wuxuu dhahay washadda abu thawr wadabariyu ayaa masalada shaad ku noqday oo labadaas kaliya laga soo guuriyaa mas'ala marka nooca shaad u ah in la sii raaco dad loo fatwoodo xaraam waay lama ogola mas'alatul sidaba qadiyatul fatwa adal intii mas'ala lagu weeyay fatwoonayso waxa la rabaa mas'alada siday adilada ku soo aroortay culimadan ijmaac ku yihiin inaad fatwooto ama jamaahirul ulama siday qabaan inaad shaadka daba ordo lama rabo rukhasta culimada barkood ay ruqsayeen wixii ama wax shaada oo adiga lafta aad ku caanfal karnaad bulshooyin inta TV u fariisato aad u fatwoodo tiraado saasa ninka laga sheegay xukiya saasa laga soo sheegay
waliba xitaa ma cabirno hebel aqaba ma dhino xitaa bacd fuqaha baa sidaa ku tageen buu yiri bacd fuqaha waxa marka noocaas oo kala shaadka tatabbuc rukhas ulama qofka raaco baan yar laba kelima ka soo qaadanayna tatabbuc rukhas ulama horta waa xaraam ma banaano mas'alatu fatwa ana khadiirteeda iyo khatarteeda ku leedahay rukhasta noocaas oo kale adiga laftaada raac oo ku caan fashidaatiyin baan la ogoleen inaad bulshooyin u fatwooto iska dhaafay al-Imam an-Nawawi sharh al-Muhadhabka wuxuu ku leeyahay majmuuca jiska koowaad safxada 46 wuxuu yiri yahrumu at-tasaahul fi al-fatwa yahrumu at-tasaahul fi al-fatwa waxa xaraam at-tasaahul fi al-fatwa qofkii mas'ala la weydiyo inuu iska soo tuuro wixii uu markaa hankiisa ku jiro soo tuuro waa xaraam buu dhahay xadiidka laftiisa soo qaadana iska fiiriso inuu ansaxay waxa jamaac culimadu ka dhaheen mansuukh inuu yahay laga yaababa caam inuu yahay khaas uu jira laga yaababa ziyaada inuu wata laga yaababa oo ziyaadada la soconada qaybta roon ka soo qaadato qaybta horna qaybta dambe ay khasiisaysa laga yaaba marka al-fatwa at-tasaahul fi al-fatwa wa haram buu dhahay at-tasaahul fi al-fatwa yahrumu at-tasaahul fi al-fatwa markaas waa man urifa bihina haruma istiftaahu ninka arrinka lagu aqoonsado inuu يعني مسائشة تساهل فتوى كوسا ميانا إن وحلا ويديا حرام بودا وحارقنا وحفر بدن يعني وذاتك أي وحلا لما أنت مسألة لو ويديو إن قاب يقول جوابا سنة كدمنا هذا نقاب كلا يقول جوابا يعني حديثك وسوق هذا وسكفيرن حديث ضعيف إني اسكمفيرن حديث منسوخ ولا نسخ إني اسكمفيرن حديث مجمل أو مبين أو مفسر أوجره اسكمفيرن علماء waxay ka dhahay xadiidku ma uusan fiirin wala soo boodiyo marka qofka nooca lagu aqoonsadana xaruma istiftaahu buu dhahay in fatwa la weydiyo qofkaas ayaa xaraam noqonaysa kadalika saasoo kale al-Imam an-Nawawi sharh muhadhabka wuxuu ku yiri jiska koowaad safxada 55 ولو جاز اتباع أي مذهب شاء لعفض إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف بودا هدي بنانان لهاد بدا قفك أي مذهب نسكرعه ما لنا مذهب ورلا فتوى ما لنا مذهب ورلا فتوى ما لنا بقول ورلا اسكا فتوى waxay arinta gaarsiin u dhahay madaahibta rukhastooda inuu qofka soo qadqaato madaahibta rukhastooda inuu soo arursado muttabi'an hawaa wa soo hadna hawadiisa raacayo oo aanan u aabayeeleynin wixii markaas wuxuu yiri way takhayaru bayna tahliil wa tahriim wuxuu u door qaadanay inuu xaraam ku dhaco mar mas'ala sax ku dhaco mar xaraam ku dhaco mar mas'ala sax ku dhaco mar mas'alada wujuubkeeda ku dhaco mar jawaas ku dhaco mar bajaha iyadoo wujuub inuu jaais ka cabiro iyadoo jaais inuu wujuub ka cabiro مذبذب بنقول مذبذب أرنتان نوع قفك سمي محي جارسين بودا وذلك يؤدي إلى الانحلال وحلو جارسين فرفرا قفك أو فرفرته من ربقة التكليف مكلف لماذا مريك تد إنه كبحابة والله نكان نجدا مكلف ما نكاس وكان وحش شيء من نجدا وركاب فتوى وانكوبا بعنا نجدا وركاب بلاي ونهر سد نجدا إن الله بيجارسين إنه مهدم بقى يجارسين إن عبد البر حافظ كله يراد في جامع البيان في جامع بيان العلم وفضله علمك إيو فضله إسكالية عدين تستكي كل من الكتاب أقوم قاعد راوحه يري لو أخذت بالرخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله بودا حدي وحور هاي قالته بالرخصة كل عالم لما أنت الرخصة دي هذا قالته ده عالم كان مسألة الرخصية أو أنكر راعية adiga ma dadka u fatwoona hadana waa mas'ala kale balaay kala dadkana u fatwoo tiraado saasa ninkaas ruqsay inaad tiraado ijtama'a fiika asharru kulluhu buday dhaxdaada waxa ku kulmay shar dhamaantii baa dhaxdaada ku kulmay buday markaas wuxuu yiri hada ijmaa'un la a'lamu fihi khilaafan buday inuu qofka shar dhamaantii gudii ku kulmay korkii ku kulmay fi dhaxdiisa waa ijmaaco la a'lamu fihi khilaaf wax khilaaf dhaxdiisa aan ku ogeyn buday waxaan ku soo gabagabaynaynaa al-calaamatu shaadibi al-calaamatu shaadibi rahimahullahu ta'ala kitabkiisan al-muwaafiqaat baa wuxuu ku yiri qofka rukhasta culimada raaco un mas'ala un daciif oo wadaadka iyo labada un ay culimada kala shaadoobeen oo hadda saan soo cabiraynay oo qurdubi la shaad bi mas'aladaano fa innahu yufdi ila tatabbu'i rukhas al-madaahib ila tatabbu'i rukhas al-madaahib أنت وهاي جالسين مذاهب الرخصوين كود إنه رع قفكي من غير إسناد إلى دليل شرعي إذا إسناد شرعي دليل شرعي مركا أطير صدنا أنا جرين
markaasuu wuxuu yidhi waqad xakaa ibnu xasmi alijmaac calaa ana daalika fisqun laa yaxilu buu dhahay qofka noocaa samaynayo faasiqa la dhihi karaa buu dhahay qofka noocaa samaynayo tatabuc rukhas ilmadaahibi semberi raaco waxay gaarsiini ilaa ana daalika fisqun inuu yahay faasiqnimo hawshaa gaarsiin buu dhahay laa yaxilu xalaalna ma aha buu dhahay arrinkaas xalaalna ma aha marka waxaa la doonaya marka qofka markuu masalada fatwoonayo inuusan hawadii iska raacraacin walaa tattabic ilhawaa fayudilaka can sabiilillaahi waa kan ilaahay leeyahay hawada ha raacraacin oo markaa shaydaanka uu kaa lumiyo waddadii wanaagsaneed uu kaa lumiyo taa ha samaynin buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahayna aayad kale wuxuu ku yidhi faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum waman adallu miman ittabaca hawaahu bikayri huda min allah yaa ka lumitaan badan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala qofka semberi hawadiisa raaco oonan wuxuu sheegayo aanan semberi aanan u meelda'in oo meesha laga jiray masalada baxdigeeda semberi aanan fiirin ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qad dalluu min qablu waadalluu kaiiran wadalluu can sawaa'i sabiil walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qowm hawadooda ha raacraacinana leeyahy qowm hawadooda ha raacraacina kuwaasoo qad dalluu lumeen min qablu hadda ka hor lumeen wa adalluu kaiiran wax fara badana lumiyeen wadalluu can sawaa'i sabiil wadada toosnaadna ka lumeen dadka marka nooca u noqonayo u dhaqanayo kale waa qad dalluu min qablu dad hadda ka hor lumay waa lumitaan hadda ka hor qofka inuu lumay oo dariiqii saxdaa uu ka lumay bay tusinaysaa waa dalluu kaiiran wax fara badanna ay lumiyeen in marka fatwada noocaas oo kale ah iyo wixii la halmaalo la iska ilaaliyo ayaa muhiim ah ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiilan afa anta takuunu calayhi wakiilan nebi maxamedow ka waran qof hawadiisa ka yeeshay ilaahiisa hawadii ka yeeshay man ittakhada ilaahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiilan korkiisa adiga miyaa wakiilka ahaanaysaa buu ilaahay yidhi kamahaanays yacnin hawaraaca saasuu ilaahay wacayay subxaanahu wa tacaala marka waxaa la doonaya qofka inuu markii uu fatwoonayo fatwadiisa la socdo dadka noocaasoo kale lagu yaqaano fatwada noocaasoo kale bixiyana waa tii imaamu nawowi hadda uu ku lahaa waman curifa bihi xaruma istiftaa'u qofka arrinkaa lagu yaqaanana in su'aal la weydiiya xaaraama marka masaladaha laga digtoonaado haweeney rag imaam uma noqon karto waana soo cadaynay adiladeedii iyo jumhuurul culamaa ijmaacna ay ka cabirayeen qaarna ay jumhuur ka cabirayeen fatwada noocaasoo kale qofkay ka soo bixina hadda kadib fatwadiisa ha cuskarina iska ilaaliyo iska sax wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu